بسم الله الرحمن الرحيم waxaa halkan ka daawanaysaan SWS show barnaamijkeena maanta ayaan waxaan uga hadli doonaa arin business cusub oo dunida ku soo kordhay businesskaas ayaa waxa maalmahan inta badan laga arkayay gobolada kala duwan ee Mareykanka meel walba haato hadii ay noqoto bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo hadii ay ahaato dadka kale ku dhaqan wadanka Mareykanka waxa maanta halkan ila jooga Cabdirasaaq Macallin oo kamid ah dadka ka faa'iideystay fursadaha businesskan uu bixiyo iyo waliba Yaasiin Cumar oo isagana kamid ah dadka ka faa'iideystay marka Cabdirasaaq marka hore ku soo dhawo SWS show adoo magacaaga iyo mataqaana ku bilaaba insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتهي سيد وعتانك أنه على SWS show سيان Somali da ama dadka daawanaayo waxa aan sameeynayno oo 5 links ah marka magacayga waxa la Cabdirasaaq Ali Macallin mar kale waxaan deganahay magaalada Lewiston State oo Maine waxaan ahay xildhibaan oo la shaqeeya shirkadda la yiraahdo 5 links oo Rochester New York degan. Okay Cabdirasaaq intaan Yaasiin aan u gudbin waxaan noo sharaxdaa 5 links waa maxay ganacsi ma business ba waxa ay qabtaan goorta la aasay iyo xafiiskooda ugu weyn meesha uu ku yaal 5 links waxa waaye laba siyaabood waa lahaa relationship marketing lahaa waxa kale oo la yiraahdaa network marketing lahaa waxa kale oo la yiraahdaa on u garanayna MLM wax la yiraahdo marka waa industry-ga waxay ka tirsan tahay network marketing yiraahdo marka company-ga 5 links la Rochester New York ku yaala waxa la aasay 2001kii marka it is based on 5 principles shan shay oo muhiim ah ay ku base gareysan yihiin oo ay isticmaalaan taasoo ah aragtida fursadda muxuu ahaa freedom-ka Soomaaliga adaas fiican ay u garanaayay freedom-ka xorriyadda iyo waxyaabo kale marka company-ga noocaas waaye. Okay dad qaar waxay aaminsan yihiin company-gan inuu yahay scam mise wax been abuur ah oo dad qof shakhsiyo hal qof laba qof saddex qof intay isku imaatay maskax soo dejiyeen si dadka lacag uga cunaan marka business-ka ma business oo mataqaana oo scam oo been abuur miya mise waa business oo dawladda xaggeeda ka sharciyeysan oo canshuurtii mataqaana loo baahnaa bixiyo leysanadii leh oo meel loogu hagaaga la miyahay wallahi runtii horta ereyga scam la yiraahdo dad badan si khaldan u fahansan wuxuu yahay marka business ahaan markaan business school waxaan ka soo bartay having a secret in your business itself is a scam micnaheedu waxa waaye marka aad leedahay wax ku qarsoon oo dadka kale la share gareyneen oo sir ah oo businesskaadu kugu socda daahaysid oo dad lagu qiyaaneen kali naftirkeeda scam ah marka ereyga scam dadku iskala soo boodaan sidii wadaadada ay Soomaalida kaga cabanayaan oo kale qof markuu wax sheega wuu gaaloway lahay oo kale waa scam meesha laga wada maayna company-gan based in Rochester New York Mareykanka wax scam la yiraahdo kama shaqeeyaan waa taqaanaa marka Rochester New York 50,000 square feet wall headquarters ay ku leeyihiin ana dhaxtay building is a very big building marka scam ma noqon karabo waxaan la shaqeynaa Verizon aan la shaqeynaa Sprint aan la shaqeynaa T-Mobile aan la shaqeynaa Direct TV aan la shaqeynaa Dish Network aan la shaqeynaa waxaan la shaqeynaa company-yaasha 500 fortune companies aan la shaqeynaa so there's no way you can tell me and T-Mobile aan telephone iga deysan T-Mobile anaga waan la shaqeynaa so scam ma noqon karnaba ilaan adi unba scam u fahmi kara maahayna Cabdirasaaq waa maasan tahay haddana waxaan su'aashii Cabdirasaaq oo aan weydiiyo kale iyadoo si kale u dhigan waxaan weydiinayaa Yaasiin businesskan waa ku jirtay ilaa waqti cabaar mataqaana adiga businesskan dad badan waxay ku weydiinayaan businesska inuu scam u yahay mise been abuur marka ma jira si mataqaana oo qofka doonaya businesska inuu ka faa'iideysto uga dhaadhicin kartid businesskan inuu ahayn mid been abuur uu yahay mid sax ah سيد وما سنتهاي مركور السلام عليكم وما سنت سدوا سودوا يسميشان dadka i weydiiyo business ka scam ya dad badan oo sheegay business kan uu aamin waayo oo very skeptical ah oo dhahaniyo scam waay marka waxay u dhahaan dadka badankood adiga braawe business ka marka wax ka faa'iidid marka kadib aan soo galeena so this area English jiro oo aan meelan ka soo qaato waxay dhahaan it's like you say let me eat first and I will eat your leftovers. Okay. saas kamata so marka dadkooda scam waa business-ka scam maaha isla si Cabdirasaaq u sheegay business-ka headquarters-kooda wuxuu ku yaalaa 500 square feet in Rochester New York
and this business is registered in the federal and wuxuu leedahay W2 forms uu leedahay and wuxuu leedahay personal website baa leedahay office dhanaa leedahay so waxa products aan leenahay dad qaarkood waxay ku dhahataa waxa waa premium scheme waxaa isticmaalaysaa dad kale isticmaalaysaa sidii aad top ku tagtid marka premium scheme waxa waaye only services dadka ay siiyaan services products ma jiro so business can we have service and leenahay and products sidii hadda aad u arki kartiin baashaan hortaala waxaa la power play waxa waaye and waa cell phone charger waa wireless charger anywhere oo qaadan kartaa cell phone ka loo mar ku charge garanaa gaariga iska dhiganaysaa wuxuu leeyahay bluetooth uu leeyahay wuxuu leeyahay speaker uu leeyahay oo waxa aad ka dhigeysan kartid so marka business kan scam maaha and dadka walaalaheena mar dambe haday dadka hadda fahamsan business kaad way fahmeen dadkan fahmi doona in the future insha Allah way fahmi doonaan okay Yasin su'aasha kale aan ku weydiinaa waxay tahay qofka markii ganacsi mise business uu maqlo waxa maskaxdiisa ku dhaco mataqaana adeeg iyo badeeco mise service and goods qofka haddii mataqaana 5 links qof markii dadka qaar waxay fahansan yihiin waxay u maleeyaan mise ay mataqaana business qofka rabo xataa qofkii horaan soo galay markuu qof kale ka dhaadhicinayo isagoon qofkii u kala sheegayn waxaan inay service iyo goods ay kala yihiin marka haddii aan businesskii aan soo galo oo marka product gacanta aan ku heenin oo goods aan iibinayo mise service qofkii aan u hayo oo kale oo aan u qabanayo adeeg qofkii aan u hayo 5 links muxuu ku base gareysan yahay ma service buu iibiyaa oo howlu qabtaa mise goods products buu keenaa hadda business kan hadda wuxuu u badan yahay hadda aan joogno business kan waa business cusub oo mar dhow 2001 kale la abaabulay so hadda badankood wuxuu service u badan yahay laakiin products na waa haysanaa laakiin taan kugu sheegay power play waa haysanaa bahalo waxa jirto oo sida tablet ko kale oo iPad ko kale laga soo gadan karo waxa la soo gadan karo tangible oo la taaban karna waa haynaa so business ka hadda insha Allah 2014 cusub sanadka cusubaan ku soo wax badan ayuu ku soo kordhamay hadda bisha hadda ku jirno todobadeeda waxay saxiixeen 4 year contract ay la saxiixeen oo $62 million contract 4 years oo nutrition oo company oo health oo qaabilsan ee la saxiixay 4 sano so marka businesska waa business oo dhismanaya oo grow garanayo oo different places u kala socdo not only maxaa lahaa waxaan la shaqeynaa services kalima hadda dhinaca waxaan u soo wareegi rabnaa products okay saasan waxyar aan ku sii dari lahaa okay xuseen okay waxaan rabaa dadka inaan fahansiiyo business kan horta traditional business ma aha traditional business waxa waa yaanyo iyo bariis iyo sokor iyo dukaamada marka laga iibsanayo oo kale marka aad iibsanaysid oo kale way jirtaa laakiinse anaga kambaniyasha oo products ka iibiyo sida let's say tusaale markaan ku siiyo Walmart oo kale hadduu rabo in productgiisa anaga aan u qaadno oo u geeyno muxuu ahaa consumer aan u raadino oo isticmaalo anagayna adeegsadaan marka 5 links anagayna adeegsataa ayada waa xaysiis oo kale xaysiis oo kale for example Walmart hadduu rabo inuu isxayisiyo ama let's say T-Mobile hadda xayisiinta ay TV-gu ku bixin lahayn halkii daqiiqo oo xayisiin ah waxaa kaga baxdo intaas oo 4 jeer soo kala galayso so xayisiintaas ayada ay 5 links waxay leedahay dhageysta 1 minute oo TV advertisement intaasoo $1 million idinkaga baxdaa and depending on channelka ay iska xayisiinaan CNN haduu yahay qaali waay Fox News haduu yahay qaali waay local haduu yahay inuu ka sii raqiisan yahay marka for example Super Bowl haduu jiro ama Champions League final markii la dheelayo Chelsea iyo Liverpool oo kale final la dheelayo ama whatever team ay noqoto markay dheelayaan finalka xayisiinta before the game ama 15 minute ka break jiro markay ay maqan yihiin xayisiinta soo gasho lacag badan baa lagu bixiyaa so xayisiin oo TV on laga yaabo in la daawanaynin ba intaas oo lacag ku bixisaan waxaan idin haynaa marka company-ga wuxuu dhahayaa 5 links baxayo T-Mobile Verizon Sprint uu tagayo wuxuu dhahayaa dhageysta waxaan oo lacag waxaad ku bixisaan xayisiinta yaasiin aan idin haynaa maalin walba magaciina ku digrinayo Verizon Sprint T-Mobile DirecTV Dishnet waa ku haya dadka idin soo gelinayo marka xayisiinta yaasiin anaga nagu siiya yaasiin aan idin joogay marka lacag 5 links marka waxa bay gareynaya kambaniyashaas oo dhan then wixii anaga marka aan lacagta ku qaadanaa direct selling alla waxaan ka weynahay Hollywoodka lacagta ay sameeyaan aan ka badanahay $30 billion a year aan sameeyna ayaga they make like $10 billion ay sameeyaan worldwide hadii loo baxana network marketingka $167 billion industry waay so all those companies are the only big industry naga weyn waa energy telecommunication ka anaga ka weyn movies waxa soo dhan anaga ka weyn is documented waxaan iska sameysanahay maaha so marka intaas aan ku daray marka Cabdirasaaq waxa kale aan ku weydiinayaa
dad badan baa mataqaana businesska markii ay promotion ay sameynayaan oo kale oo qof inay businesska ay u bandhigaan ay rabaan oo kale qof walba u sheegaan marka businesskan ma qof oo specific person mise qof mataqaana oo kamid ah bulshada oo ka faa'iideysan kara ma jiro is this business for everyone ma qof walba mataqaana businesskan ka faa'iideysan karo bal noo faahfaahay midaas walaahi runtii horta businesska qof walba samayn karo haddana si kale markaan u dhaho qof walbana ma samayn karo qofku waa inuu business minded ahaadaa waa maskax business waa inay ka dhaadhacsan tahay macnaha waxaan ka wadaa business wuxuu yahay baadaadanba garanayninba business waa khasaare iyo faa'iido adigoona marka businesskana adigaa iska leh independent marketing representative waxaa la dhahayaa tahay xur baa u tahay waxaad samaynaysid qof kusoo wacayo oo shaqata ku dhahay ma jirto so dukaan hadda adaa furtado showgan oo kale markaa bilaabaysa lacag baa kaaga baxday wax walbaad samaysay qarash walbaa u gashay lacagtaasna lacag meelaha kale aad kasoo shaqaysato ah so marka businesskan nin walba og business wuxuu yahay fahansan wuu samayn karaa laakiin nin aan businessba weligiisba gelin haddaa u sheegtid they like the idea in the beginning way kusoo boodayaan instructions aa lagu siinaa system la raacaya jirto saan sameey haddaadan sameynin waxba ma helaysid so saas waay yaasiin hadda adiga kuusoo laabto businesska dadka mataqaana dhalinyarta idinkeeda la shaqeyso oo kale mise businesska kula jiro markay promotion ay sameynayaan oo dadka ay businesska u bandhigayaan qofka ganacsi business intuu soo gelin ka hore qofku waa inuu lacag haystaa ilaan waxaan ganacsi walba lacag baa lagu bilaabaa qofki isagoon maaragtay lacag jeebkiisa aan waxba ka bixin ganacsi ma geli karo marka dhalinyarta qaar waxay sameeyaan mise idinka ama kolley qof walba waa target baa ka dhigataan marka Soomaal ma noqon karto lugooyo qofka in la lugooyna qofkii isagoon investment lacag ku invest garay businesskan uu heen haddii aan soo geliyo 350 kilo galay uu bixiyo oo businesskii hadhow wax uu ku socodsiyo kale uu sahaynin oo adigina ma taqaana laga yaabo qofkiina aqoon u leedahay marka soo lugooyo ma ku noqonayso qofkaas aad lugooynaysaan may taas aniga lugooymo oo ma dhihilaan because waxa yeelay businesskan wuxuu ku siinayaa option badan oo lacagtaada aad ku soo celisid waxay ku siinayaan 30 bari ugu horeysa da businesska soo gashid laba ruux hadda businesska aad u sheegtid mise aad soo galisid inay ku siinayaan $100 mise $750 waxay ku xirantaa waqtiga soo gashay marma qaarkood haladeedo hadda soo gashida kul waa $100 taas midda labaadna waxa waaye hadii aad 20 customer points aad tagtid mise dad aad u bedesho koronto cable internet مثلا وحويال كسو قدرت أنا كمباني كسو قدرت إن بوينت وقصينا صلاة تصدق كبري أقولس هذا لو 10 بوينت أكو تكتشم بقول يكوسو عنا سو بيزنس لعقتك هاي بحد يكوسو ولا أنا مركب وحوجت فائدة بوجدتها سو قصار مكاسو قليسو مركا أنا دتك بدن بيزنس كان أشياء جاي وحنا قصار مكاسو فائدة بكاسو قليسو. أوكي دي متى أثبت أقول دار بيزنس قفك مركو مسكح بيزنس وليه معه مسمال وأركو إني دقالك سو قلايان قفك أنت بدن فكرة دي سدتك لما لا قيب صدا أو هي keeps to himself. مركا واي إذيك بيزنس كين محقون نقطة ميت قفل بالله أو قفل بالدنيا إن لسوق لي. تاس أنا تاس داكو وحاول the whole idea of network marketing وحاول أساس. أنا دي مالها كالبيزنس كم تقنا وحاول أديك نفط هذا أورديسا. هدات العقد بدن أجيلتي مثل بيزنس كذا سكسير يكون نقطة أدلة وا. وبيزنس كان network marketing ولا سكو حرينيا. So business كان أنا هدا أدي أمانة business كعب سيدا نقول for example كوسو قات هدا business كمان تان كوسو قليو. adiga hadaad lacag business ka sameynayso aan lacag ma sameynaa waa isku xiranaa sida sidoo kale mid ka hoos aad lacag sameeyo aad lacag ma sameynayso so waa gacmaha haysanaa ilaa kor asla wada aadina okay marka Cabdirasaaq horta in su'aashaada waa su'aal runtii aad iyo aad muhiim u ah laakiin se hal mid ay dadka ilowsan yihiin mar walba xasuusneen maamaha aan dhaho ama maybe saying aan dhaho and waxaa jirto waxa la yiraahdaa sharing is caring. We share the business opportunity anaga. It's not like we get people to scam ama we get people that aan keenina si aan uga faa'iideysano maaha business kan waxa waaye hatta let's say marka soo gashid ad representative dad ba aad u sheegin oo adiga kula shaqeysta dadka aan business kala share gareyno laba nooc bis ay noqonayaan customer ay noqonayaan oo lacag baan u save gareynaynaa they save money maxay lacag ku save gareynaan serviceedii already gurigooda ku isticmaalayeen korontadii gaaskii internetkii home heating oilkii tvgii cablekii
telefoonadii ay haysteen ilan companyyaashaas oo dhan aan la shaqeynaa so qofka markaan u tagno marka give them two choices they either become customer ay noo noqonayaan oo lacag aan u save garaynaynaa annaga companiga maraykanka dhan ugu raqiisan annaga ma nihin so the only time adiga customer noo noqonaysid waa markaan ogaano inaan lacag ku save garaynayno customer noo noqotay kan kalena waxaan dhahaynaa okay waxaan ani aan sameynaayo ma ka heshay ha okay business partner ilo noqo aan wada shaqaysano so adina you do the same thing over marka okay haddii laakiinse oo hadda dhalinyarta inta badan dadka o dhan target ay ka dhigtaan haddii waan kuu sheegay marka qof baan target gareeyey businesskii waa maarata waan ka dhaadhiciyey wuu soo galay qofkii sign up feegii uu bixiyey maxaa jiro membership fee jira umalena every month la bixinayo marka qofkan haddii businesskii uu mataqaana ani haddii qofkan mataqaana horaan oo formal education oo kale uusan lahayn oo mataqaana xataa dugsi hoose iyo dugsi dhexe dugsi sare uu soo marin oo mise computers uu shaqeeyo inuu garanayn business ganacsi wuxuuna garanayn businesskii haddii aan soo geliyo oo si walba aan maarata qofka kusoo jiito businesska aan soo geliyo qofkii hadduu hadhow successful uu noqon waayo soo ani may eedeynayo may dhihi waa may dhihi macnaha may dhihi karo Sid Axmed waa ilo goysay oo mataqaana waxaana soconin baa lacag iga bixis walaahi runtii qofka adiga aad business soo gelisay ku xiran tahay bini'aadanimadiisa iyo maskaxdiisa business waxa ka dhaadhacsan for example ingiriis uma baahno businesskan inaad rangaraysid for example EJ Bardow nin ay dhahaan platinum senior vice president $1 million ka sameeyaa company-gan Philippine waaye ingiriis dhan ma yaqaanin intuusan gelin 6 sano ka hor uu galay markuu businesskan present gareynaya DVD gacantiisa ku watay wuxuu ku gelinayaa TV-ga wad dhageysanaysaa then sign me up aad leedahay marka waxa dadka marka hore they are is too good to be true way dadka qaar ku dhahan way cararayaan dadka qaarna wixii way fahmayaan in la sameyn karo laakiin wixii lagu sheegay system baa lagu sii raac baa lagu dhahay haddaadan raacin for example coach you know dadka coach waxay u haystaan mataqaana coach wuxuu ku barayaa inuu wuxuu ku gaarsiinayaa si aad u samaysid wax keligaa adi haddaad samayn lahayd aad samayn lahayn for example wuu ku orodsiinayaa adoo daalu ugu leeyahay saaxib soco ku wada ilaa iyo marka dambena beera champion uu ka soo saarayaa so marka qofka business la soo galay coachable inuu noqdo waay wixii loo sheegay inuu hay'ad ah waay war system saana ku qoranay raac ayaan saan laga rabaa yeel hadduu intii sameyn kari waayo dhow adin buu aad kula soo istaagaya qof dad eeday hadda aragtidna haddii qof asagoo meel iska bixin waaye ani sasan kuley aaminsanahay laakiin soo ma noqon lahayn marka hore soo ma fiicnaan lahayn marka hore businesskan dadka u bandhigaysaa inay ahaadaan dad qualified people dad oo businesskan ka faa'iideysan kara ganacsigan intii qof walba target ka dhigan lahaydeen macnaha dhalinyarta oo business minded ka ah qofka mataqaana oo formal education ka haysto qofka mataqaana oo markaas already ganacsi ku jiro ina u bandhigtaan intaas kaliya aad target gareysaan oo dadka bulshada oo dhan aad target ka dhigan soo ma fiicnaan midaas waxaan ku sheegayaa dhageyso businesska nin aad u maleynaysid business minded inuu yahay business minded noqonaynin so what we do dadka ma prejudge gareyno prejudgment ma ku sameeyno oo ma dhahno annagoon waxba ku sheegin inoo barasho horteeda ay nicin baa Soomaalidu ku maamaada so Sid Axmed oo kale markaan adiga aan kuu sheego oo waxa laga yaabaa inaad hore ka qaadatid waxa laga yaabaa inaad idhaahdo waxaan ani waqti uma hayo laakiin dad qaar waxa jiro marka ayagoon wixii iska hubin markii loo sheego hadda for example odayaal qaar markay maqlaan horaan dad badan aan keeni karaa business ku soo xir karaa igu dar by the time aad soo gelisid trainingkii company-ga ilaan waxa walba aad sameynaysid dukaana leedahay for example dukaankaaga yaanyada iyo saliidda iyo sokorta waxa la gadaa haddaadan garanaynin talow customer markuu ku imaado telefoon inaad qaadato qof wacdid miya customer ku xidhaa kan alaabtiisa wax la gaday ma aqaana iga wada kulay ma kugu soo noqonayo so dadku way jecel yihiin wixii marka hore laakiin anaga bridge ma ku sameyn karno qof aad umaleynayso inuu khatar yahay ku dhaaranaysid at the end of the day Thomas Midlayo my mentor wuxuu dhahaa dadkan umaleynay champions chimps igu noqdo dhaa war dadka umaleynay inay dad khatar yihiin businesskan ila wadi doono ay waxay ugu noqdeen dad macnaa meesha aan mool umaleynay ay mijinteeda gaari way sidii la sheegay oo kale marka yaasiin wax yar oo rabo inuu ku daro yaasiin أنا waxaan ku darsan lahaa like Cabdirsaaq qoreeyay taa u sheegay anaka marka businesska dadka u sheegana prejudgment ku sameeyno this guy mentorkan wuxuu dhahay don't prejudge anybody don't judge book by its cover so ruux waxa arkaysaa maanta marka dad waxaa jiro Soomaaliga luqadda Ingiriiska ay ku adag tahay dhahday businesska u sheegana oo aad ka faa'iideysan kar waxa laga yaabaa ruuxaas inuu garanayo ruux oo tough businesskan oo businesska markuu inuu soo galiyo laga yaabo inuu si fiican uga faa'iideysto mise waxa laga yaabaa ruuxaas inuu family-giisa laga yaabo mise saaxiibkiisa laga yaabaa mise soo marka businesskan waxa waa dadka anaga waa la sheeganaa ruux kasta u sheegnaa businesskan hadduu soo galayo iyo hadduu business uu ka faa'iideysan asaga u taalaa okay alaawad businesska laba qayb businesska sidiisa waxaa maqlaa hadda wadaan 5 links laba nooc waa mid waa mataqaana waa
dadka mataqaana oo ka rabo inay business ka faa'iideystaan oo sii iibiyo mise sii xayeysiiyo rabo sidaas lacag bay ku sameeyaan midda kalena waxaa waaye qof oo mataqaana meel iska degan oo kale customer baa korontadii mise telefonkii u bedelaysa marka maxay u kala duwan midee baa lacag badan ma inaa customer dad badan oo keentid oo mataqaana oo representatives ma lacag badan mise customer inaa keentid oo mataqaana marka barnaamijkeena maantaas aan kusoo gabagabeynayna insha Allah intaan usbuuc dambe haduu Ilaahay yiraahdo aan hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.